waa geeri kale oo naxdin leh oo laga soo warinaya caasimadda Muqdisho laakiin falalka ceenkan oo kala ayaa waxa ku horeyn jiray in kufsi loo geysto dabadeedna nolosha la dhaafiyo gabar yar oo muddo 2 maalin ah la raadinayay ayaa ugu dambeyntii maanta meedkeeda laga helay digsi weyn oo yaala qol ka mid ah gurigii ay ku nooleed oo ku yaala degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho gaar ahaan waaxda Kaabagoday gabadhan meedkeeda la helay oo 2 maalmood ee ugu dambeysay nolol iyo geeri laga baafinayay baraha bulshada ayaa waxa lagu magacaabaa Nafisa Cumar Cabdilaahi waxaana meedkeeda laga helay digsi weyn oo dusha laga sii saaray digsi kale iyo joodari si aan loo dareemin ciidamada booliiska oo gaaray guriga falkan uu ka dhacay ayaa sheegay in gabadha jirkeeda uu ka muuqday jirdil sidoo kalena laga xiray gacmaha iyo lugaha halka afka loo geliyay caaga lagu shuubiyaha la warshadeeyo ee 1 litir gabadhan oo daadeedu lagu sheegay 10 sano jir ayaa meedkeeda la ogaaday inuu ku jiro digsiga kadib ur laga dareemay guriga oo dhan taasi oo keentay in baaritaan lagu sameeyay qaybaha guriga iyo alaabta guriga laga helay meedka gabadha ayaa waxa uu ahaa guriga ay ku wada noolaayeen hooyadeed iyo aabaheed waxaana sidoo kalena la deganaa dad kale waxaana dhammaantood lagu xiray saldhigga booliiska ee degmada Dharkeenley gudoomiyaha degmada Dharkeenley Guhaadi Sheekh Xasan oo goobta meedka laga helay kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in falkan uu ahaa mid aad loogu naxo waxaana uu sheegay in meedka gabadha yar la geenayo xarunta dambi baadhista ee CID-da sidoo kale gudoomiyaha ayaa xaqiijiyay in la xiray dhammaan dadkii guriga meedka laga helay ku noolaa oo ay ka mid yihiin hooyada iyo aabihii dhalay gabadhan dadka la xiray ayaa waxay isugu jiraan ehelka gabadha iyo dad kale oo la sheegay inay guriga la deganaayeen welina faahfaahin lagama helin qaabka uu dhacay dilka gabadha yar waxa sababay laakiin guud ahaan geyiga Soomaalidu kuma ahan wax ka cusub fal ceenkan oo kala ah asaate waxa ka horeyn jiray in kufsi loo geysto dabadeedna nolosha la dhaafiyo laakiin ilaa iyo hadda ma cadda in gabadhan maanta Muqdisho lagu dilay ama meedkeeda lagu arkay in kufsi loo geystay